shirweynaha wada tashiga muddada uu socday waxaa diiradda lagu saaray midnimada wadajirka beesha, xaaladda siyaasadeed ee dalka, kan dowlad goboleedka Galmudug, shirka nabadda Hobyo ee beelaha Habargidir, horumarinta iyo nabadgelyada deegaanada ay beeshu degto. waxaana gabagabadii shirweynaha ka soo baxay go'aanadan: kow, midnimada iyo wadajirka beesha inay muqadas tahay, ilaalinta midnimada beesha Sacad lana xoojiyo ka wada tashiga arrimaha la xiriira xaaladda maamul, dhaqan-dhaqaale, siyaasadeed, amni iyo horumarineed ee deegaanada ay beeshu degan tahay iyo maamulada ay xubinta ka tahay, iyo sidii wadajir soo celinta sharafta iyo meeqaamka beesha ku leedahay Galmudug iyo guud ahaan midda Soomaaliyeed. xaaladda siyaasadeed ee dalka. lambar 2, shirweynuhu wuxuu adkeeyey ilaalinta midnimada iyo madax-bannaanida dalka Soomaaliyeed inay tahay lama taabtaan. ummadda Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo waxyeelayn u geysanaya. shirweynuhu wuxuu dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ugu baaqay inay dalka iyo dadka ay u turaan khilaafka soo jiitamayay ee muddada u dhaxeeyay ay degdeg ku xalliyaan iyagoo u maraya dastuurka dalka u degan. 3, shirweynaha nabadda Hobyo ee beelaha Habargidir, beesha Sacad waxay taageeraysaa si buuxdana uga qaybgalaysaa shirka nabadda Hobyo ee beelaha Habargidir. beesha Sacad waxay ugu baaqaysaa beelaha kale ee Habargidir inay ka soo qayb galaan shirka nabadda Hobyo iyagoo fulinaya ballanqaadkoodii ay u sameeyeen guddiga farsamada shirweynaha. beesha Sacad wuxuu ugu baaqayaa beelaha Habargidir inay shirka nabadda Hobyo dhexdiisa ku xalliyaan kala aragtiduwanaanshahooda iyo kala aragtiduwashooda ku saabsan habka iyo hanaanka loo marhayo dhismaha dowlad goboleedka Galmudug, guud ahaanna aragti midaysan ay ka yeeshaan arrimaha siyaasadda dalka. xaaladda dowlad goboleedka Galmudug. shirweynuhu wuxuu dareen weyn ka qabaa xaaladda dowlad goboleedka Galmudug oo ay ku sugan tahay wakhtigan, iyo khilaafaadka ka dhaxeeya maamulka iyo beelaha Galmudug ee keenay inay wiiqanto awoodda dowlad goboleedka Galmudug, taasoo u baahan in lagu xalliyo isfaham iyo wadaxaajood horseeda Galmudug midaysan. shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay in nidaamka xukun ee dalku qaatay uu yahay federaal, ayna yihiin dhismaha golayaasha sharci dejinta iyo fulinta ee dowlad goboleedka laguna nidaamiyo si waafaqsan dastuurka maamul goboleedka sida uu xeerinayo qodobka 120 ee dastuurka ku-meelgaarka ee dalka.
wax faragelin ahna aysan lagu samayn hay-ad ka mid ah kuwa xukuumadda federaalka Soomaaliyeed iyadoo shirweynuhu adkeeyay in la dhowro dastuurka dalka u degan. 4 shirweynuhu wuxuu isla qaatay si loo dheelitiro awood qaybsiga maamulka Galmudug in saldhig looga dhigo labada gobol ee uu ka kooban yahay ee Mudug iyo Galgaduud. shirweynuhu wuxuu isku waafaqay in shirka nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo gogoshiisu noqoto magaalada Gaalkacyo maadaama uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu dhagax dhigay Gaalkacyo xarunta nabadda iyo dib u heshiisiinta Galmudug bishii Janaayo 2018. shirweynuhu wuxuu garowsaday in doorashada hay-adaha dastuuriga ah ee beelaha Galmudug dastuuriga ah ee dowlad goboleedka Galmudug loo madax baneeyo beelaha Galmudug iyo waxgaradkooda iyadoo guddiyada maamulaya doorashooyinkaas ay beeluhu si madax bannaan u soo xushaan xubnaha uga qaybgalaya. sidoo kalena doorashadu ay ka dhacdo goob ay u siman yihiin dadka reer Galmudug isla markaana heshiis lagu wada yahay. in degmooyinka maamul goboleedka Galmudug laga hirgeliyo doorashooyin daah furan oo qof iyo cod ah si loo soo doorto maamulo degmooyinka iyo golayaalka deegaanka oo haysta kalsoonida dadkooda. in dastuurka Galmudug dib loo eego laguna saleeyo si Galmudug ay u yeelato dastuur dhammaystiran oo mid ah waafaqsanna rabitaanka beelaha Galmudug. horumarinta shirweynuhu wuxuu soo dhaweynayaa dardargelinta qorshaha lagu dhisayo dekadda Hobyo ee bishii January 2018 uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu dhagax dhigay. ra'iisul wasaaruhuna dhowr jeer booqashooyin la xiriira arrintaa ku tegay dalka aan walaalahanahay ee Qatar oo ballan qaaday dhismaheeda. maadaama mashaariicda kale oo la mataanaysnaa la bilaabay hirgelintooda iyadoo loogu baaqay ganacsatada Galmudug iyo dadka kale oo Soomaaliyeed oo danaynaya ay ka qayb galaan maalgashadaan. shirweynuhu wuxuu ku baaqayaa habsami u socodka mashruuca dhismaha wadada Hobyo iyo Gaalkacyo oo guddiga gob uu meel wanaagsan marayo waxaana lagu ammaanay dadaalkooda iyo kartidooda looguna baaqay dhammaan bulshada jaaliyadda dibadda ganacsatada inay ka wada qayb qaataan dhammaystirka mashruuca wax ku oolka ah. in la horumariyo dhammaan adeegyada bulshada iyo kaabayaalka dhaqaalaha ee deegaanada beeshu degto sida wadooyinka, garoomada diyaaradaha, ceelasha, goobaha waxbarashada, caafimaadka iyadoo lala kaashanayo shacabka deegaanka, qurbo joogta,
hay-adaha dawliga ah iyo kuwan dawliga ahaynba. degmooyinka gobolka mudug ee kala ah gaalkacyo iyo hobyo waxaa shirweynuhu xoojiyey codsiga degmooyinkaas oo ay u gudbisteen wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ah in lagu daro mashruuca horumarinta magaalooyinka ee JBLG in la mamnuuco si wada jir ahna looga hortago shacab ahaan, maamul ahaan iyo ciidanba xaalufinta deegaanka iyo khayraadka baddeena. cid kasta oo ku howlan jaridda dhirta, gubidda dhuxusha ama kalluumaysiga sharci darrada ah ay wajihi doonaan ciqaabta ay mutaysteen. nabadda iyo cadaaladda in la adkeeyo nabad ku wada noolaanshaha beelaha ku wada nool gobolka mudug iyo galgaduud oo ay beeshu wax ka degan tahay, in laga hortago meelna looga soo wada jeesto cid kasta oo waxyeelaynaysa nabad ku wada noolaanshaha beelaha deriska ah, iyadoo la bogaadiyey nabadda ka jirta magaalada gaalkacyo ee ay ku wada nool yihiin reer gaalkacyo, iyo sidoo kale sidii loo adkeyn lahaa